dagaaladan oo u dhaxeeya dowladda ku-meel gaarka ee Soomaaliya oo garab ka helaysa ciidamada AMISOM iyo xarakada Al-Shabaab ayaa ka dhacay xaafadaha Afrika iyo qaybo ka mid ah Bangaariyo ee degmada Hodan kuwaasi oo bilowday xilli hore oo maanta ah. dagaalkan ayaa la isku adeegsanayay hubka noocyadiisa kala duwan iyadoo daryanka madaafiicda iyo dhawaaqa rasaastuba ay ahaayeen kuwa si xooliyo la isugu dhaafsanayay. dabaabaadka ciidamada AMISOM ayaa ka qayb qaadanaya dagaalka iyadoo la arkayay kaarayaasha ay isticmaalayaan ciidamada AMISOM oo karneelo ka tuuraya goobaha hore ee dagaalada halkaasi oo dhawaqiisana si aad looga maqlayay. si rasmiya looma oga khasaaraha dhimasho ee midka dhaawacay soo kala gaaray dhinacyadii halkan ku dagaalamayay inkastoo deegaanka uu yahay cidlo isla markaana ay ku wada sugnaayeen dhinacyadii dagaalamayay oo qura. burbur xoogla ayaa ka muuqanaya dhismayaasha goobaha ay dagaalada ka dhaceen kuwaas oo ay sababeen madaafiicda iyo rasaasta la isku dhaafsanaya dagaalkan. abaanduulaha ciidamada xoogga dalka Cabdikariim Yuusuf Dhagabadan oo warbaahinta kula hadlay agaga hore ee dagaalka ayaa ka warbixiyay qaabka uu dagaalka u bilowday. in hadda dagaalka uu hogaaminayay madaxweynaha dowladda federaalka wasiirka gaashaandhigga taliyaha ciidamada Diyaano Abaanduuliye. sidaas daraaddeed dagaalku waa soconayaa inna istaagayo inta taako ay ka dhiman tahay dalka Soomaaliya. Cabdikariim Yuusuf Dhagabadan abaanduulaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa sheegay in shacabkii deganaa guryahan aan loo baahnayn inay dhaqsi ku soo degdegaan isagoona sheegay in baaritaano dhanka miinooyinka ah lagu sameyn doono. shacabka iyo ummadaba waxaan u sheegaynaa xilligii ay guryahoodii dib ugu soo noqon lahaayeen inay tahay. waxaana shacabka uga digaynaa markaan haatana in guryihii miinooyin iyo wax badan ay ku aaseen isla mar ahaantaasna intaan baaritaanka dhammaynayno la miyirsado oo la tirtiibsado. xanibyada hore oo jidadka ka xiranna waan ka qaadaynaa guryahoodiina way ku soo noqonayaan ninkii nasiib u yeeshay oo gurigiisa la gaaray. dagaaladan ayaa qayb ka ah kuwii ka dhacayay degmooyinka Hodan iyo Howlwadaag maalmihii la soo dhaafay kuwaas oo soo imaanayaan ciidamada dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo dhinaca iyo xarakada Al-Shabaab. Cabduqaadir Cumar Cabdulle, Universal TV, Muqdisho.